kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad dunida dacalada ka joogtaan halkan waa Rugta TV oo nagala socotaan daawadayaal kusoo dhawaada barnaamij aan kaga hadlayno fanaanka caanka ah ee Khadar Keyow soo deyntiisa maalmihii ugu dambeysay waxaa baraha bulshada la isla dhexmariyay in fanaanka caanka ah ee Khadar Keyow la soo deyn doono ama gabi ahaanba la soo daayay hase haatee wararkaasi ayaa noqday warar ku tiri kuteen oo haba yaraatee aan sal iyo raadba lahayn waxaa ilaa hadda soo baxaya warar sheegaya in gabi ahaanba fanaanka aan laga soo deynin xabsiga oo ku xidhan yahay xabsiga ku yaala caasimadda dalka Itoobiya ee Addis Ababa. Fanaanka ayaa dhawaan la xidhay halkaas oo uu tagay magaalada Addis Ababa in uu hawlihiisa gaarka ah ka soo fushado, laakiinse ilaa hadda lama hayo fanaanka warar xogaal ah ku saabsan in fanaanka jeelka uu ka soo baxay ama xaaladiisa. Fanaanka ayaa waxaa lagu ramay in uu Itoobiya ka degay gaar ahaan caasimadda dalka Itoobiya ee Addis Ababa, halkaas oo uu gudaha u galay. Hase haatee markii uu Itoobiya galay ayaa gabi ahaanba la xidhay. Waxaa soo baxaya warar iskhilaafsan oo ka soo baxaya fanaanka oo sheegaya in fanaanka loo xidhay sababo la xiriira laanta immigration-ka iyo dokumentiyo been abuur ah oo uu ku galay halkaasi. Dadka qaarna waxa ay leeyihiin hees ayaa uu ka xaday fanaan ka mid ah fanaaniinta Itoobiya kaasa soo dacweeyay. Dadka qaarna waxa ay leeyihiin hadiyad uu waday gabadhiisa ayaa halkaasi lagu qabtay oo kontrabaan ahaa. Si kastaba haatee fanaanka ayaa sida doonaba lagu xidhay hadda waa uu xidhan yahay waxaanu ku xidhan yahay jeel ku yaala bartamaha Itoobiya gaar ahaan caasimadeeda Addis Ababa. Dad aan wareysanay ayaa fanaanka waxa ay noo sheegeen in ugu wardambeysay markii la sii kaxeynayay la sii saarayay baabuurka booliiska ee ciidamada Itoobiyaanka gaar ahaan kuwa booliiska, waxaana lagu sheegay markii ugu dambeysay in lagu xidhay saldhig ka mid ah saldhigyada Itoobiya ku yaala halkaas oo dadka lagu xidho. Fanaanka ayaa maalmihii ugu dambeysay waxaa la isla dhexmariyay in gabi ahaanba la soo deyn doono. Waxaa dadku qaarna ay lahaayeenba in xukuumadda Soomaaliya iyo sidoo kale xukuumadda Itoobiya ay wada hadleen, laakiinse warkaasi waxa uu noqday war waxba kama jiraan ah oo baraha bulshada lagu faafiyay. Ilaa hadda lama oga fanaanka xaaladiisa, xilliga la soo deyn doono, waqtiga fanaanka uu xurriyadiisa dib u heli doono. Si kastaba haatee fanaan ku sugan gudaha Itoobiya gaar ahaan dowlad deegaanka ee lagu magacaabo Al-Fanaan Cali Dhaanto ayaa gabi ahaanba waxa uu sheegay in la soo deyn doono. Hase haatee ilaa hadda lama hayo soo deynta waxaana u muuqataa in gabi ahaanba ay fashilantay. Warar aan isku daynay in fanaanka aanu kala xiriirno xaaladiisa ayaa haba yaraatee ilaa hadda aanan weli helin warar sax oo lagu kalsoon yahay kama hayno fanaanka. Dadka fanaaniinta ee ku sugan gudaha Itoobiyana waa ay ka gaabsadeen iyaga oo lafahooda u baqaya in gabi ahaanba la xidho ama la qabto. Fanaanka caanka ah ee Khadar Keyow ayaa fanaan wiil dhalinyaro ah oo aad u daayar, kuwaas oo bulshada Soomaaliyeed ay aad u jeceshahay. Sidoo kalena fanaanka waxa uu soo qaaday heeso kala duwan, waxaanu shacbiyad weyn ku leeyahay bulshada Soomaaliyeed. Dad fara badan ayaa fanaanka taageeri jiray ka cadhooday xadhigga loogu geystay magaalada Addis Ababa, waxaana dadka qaar sheegeen in fanaanka loo ololayo ama sidii loo sii deyn lahaa. Hase haatee ilaa hadda ma muuqato mas'uul ka hadlay ama qof caan ah fanaankaasi, waxaana u muuqataa in fanaankaasi gabi ahaanba la dayacay oo gabi ahaanba fanaankaasi aan la soo deyn doonin sida muuqata.